متعلق بأستارها وحان أركنين كعبضة تيرر كذا كل دجن كعبضة دربي يدو كل دجنيه يقول حليه هاي اللهم أخرجني من الدنيا مسلما إلهي وأنا مسلم أدونك إقصار بلي لا يزيد عليها مكة زيادنا وكل علنا اللهم أخرجني من الدنيا مسلما بلي مركزان وحان يريبو يري ما مكة زيادة أنت سكوع علنا وحان يريبو يري أنت نسوا دوادي ورنيه هو ما أنت كلمة ما أنت نكوع علنا ونقوي يعني كاسو يريبو يري هداد أوغان لهيد قصدayda saa ima aad dhahdeen oo qisadaadu waa maxay markaasuu wuxuu leeyahay waxaan lahaa laba walaalo ah oo muadiniin ah ayaan lahaa laba walaalo ah oo muadiniin ah ayaan lahaa laba walaalo oo aadaama masaajidka ka aadaami jireen markaasuu wuxuu leeyahay fiiri midkood كان يؤذن أحدهما 40 سنة مدة وحو آدامي جري 40 سنة أيو آدامي جري مركا نفتو كد عيسي أخذ المصحف مصحف كي قرآن كأهابو قاضي وحو يري كتاب قرآن إيديبا والله كان مركي اللو ديبي أيو وحو يري أشهد أني بريء من هذا وحنقريا إنا بريك أهي متكلم فيري وأنا 40 سنة آدامي وحنقريا إنا بريك أهي markaasaan naftii ka baxda ciddii oo dhan baa ka oyday way la yaabeen waa khaatimo xun kii kale bii oo walaalkay ahaa oo asagana 30 sano aadaamayay ayaa asna markuu dhimanayay sidii oo kale sameeyay kitaab quraan uu qaatay markaasuu wuxuu yidhi markhaati iiga noqda inaan kan beri ka ahay markaasaan waxaan idhi buu yidhi walaalaha dembi ma ku taqaanay markaasuu wuxuu yidhi buu yidhi kaana waxay ahaayeen fiiriya waxay ahaayeen labada nin yutaabicuuna kuwa raaca cawraati الnisaa'i dumarka cawradooda muadiniin bay ahaayeen laakiin waxay jeclaan jireen inay dumarka qaaqaawan fiirsadaan fiiri subxaan allah inaga maanta tiifiyaa guryaha noogu jira dhalinyarada keebal baa guryaha ugu jira wuxuu fiirsanayaa naaga qaaqaawan joornaal qaaqaawan buu fiirsanayaa waxaa loo leeyahay adult magazine hebel san waxaasaa dhici karta inuu fiirsado ogow khaatumadaasi saasaa qofka u dambayn doonta ilaahay ha naga badbaadiyo nacuudu billahi min dalik wuxuu leeyahay waxay ku daraayeen oo ilaahay ku imtixaamay inay dumarka indhaha la raacaan oo cawradooda fiirsadaan saasaa ilaahay ku ciqaabay markay dhimanayeen inay kitaabka ka kufriyaan waxyaabaha cajiib kale waxaa ka mid ah oo lala yaabo waxaa dhici karta ikhwaani qofku inuu intaas oo sano khayr ku dhex jiro baa dhici karta intaasoo sano inuu khayr ku dhex jiro maalinta uu dhimanayana inay khaatumo xun u dambayso laakiin khayrkii uu ku dhex jiray daacad kama ahayn waxyaabaha dadka khaatumada xun mar walba loogu khatimo waxaa ka mid ah baa la yidhi dadka sigaarka joogteeya waxay culimmadu qireen qisas badan oo laga wariyay dadka sigaarka mar walba sigaarka caba waxaa ka mid ah qisadaas imaamu ibnu lqayim wuxuu qoray qiso wuxuu leeyahay niman muslimiin ah waxaa jiray waxay u safri jireen inay zakada dadka ka soo ururiyaan waa qiso sugan marka ay zakada soo ururiyeen waxaa la socday nin shaqaalaha ka mid ah zaku soo ururinaya oo khayr buu ku dhex jiraa oo sigaarka daa'ima sigaarku cabaa wuuna qarsadaa sigaarka saaxiibadiina way ogaadeen way arkeen isagoo sigaarka la dhumanaya arkeen maalintii dambuu dhintay ninkii markii uu dhintay meel cidlo ah baadiye ah buu ku dhintay reer baadiyihii baan u tagna waxaan ku niri bay dhaheen waxaadna siisaan wax aan qabriga ku qodanno nin reer baadiye ah wuxuuna siiyey bahalka la yidhaha faaska sooma taqaanaan qoryaha iyo lagu jajabiyo oo la isticmaali jiray geedaha iyo lagu gooyo ayuu siiyey wuxuu yidhi geedka faaskan qaata qabriga kusoo qota iisoo celiya markaasuu wuxuu yidhi faaskan arigaan geedaha ugu gogoostaa arigana waan ku ootaa haddaad iga dhumisaan ama iga jebisaan daabkiisa qoriga uu ku jiro waa aniga idinka wax aan gurigiisaba waxaa yaala faaskaas iyo qori uu ku ugaarto wuxuu sameeyey marka nimankii waxay sameeyeen qabrigiisay u qodayeen markay iilkii gaareen ayaa dhagax isku gudbay dhagaxii bay jebin waayeen markay qodeen oo jebin waayeen ayaa nin baa intuu faaskii qori buu ku jiraa faaska waa bir dowlad le oo qori la dhex geliyo qorigiibuu ka bixiyey
markaasuu intuu birta gacanta ku qabtay buu dhagaxii jajabiyey markuu qoday dhagaxii oo iilkii la dhameeyey oo ninkii la duugayey bay qorigii bannaankay dhigeen birtii faaskana meeshii bay ku iloobeen afkiisii ninkii way duugeen faaska afkiisu intee buu la egyahay dadka arkay intaan camal sooma wax yaroo saan oo kale markay duugeen oo ay baxeen oo ninkii reer baadiyaha ay u tageen ayay waxay xusuusteen inay faaskii soo iloobeen kaase waxay dhaheen waniyo faaskii waxaan ku ilownay qabrigii qorigiiba usoo qaatay wuxuu wallahi idinkoo dhan waa idin dilaya haddii aan faaskii ii keenin wuu soo kaxeeyey qabrigiibu geey wuxuu qoda faaskayga ii soo bixiya qabrigii bay qodeen war reer baadiyu way madax adag yihiin qabrigii say u qodayeen markay iilkii gaareen ayaa waxaan aragnay bay dhaheen ninkii oo labadiisii gacmood inta dhuunta loo geliyey labadii lugood inta la soo jabiyo gadaal laga soo laabay qoorta loo saaray oo faaska afkiisii la kala waasiciyaa loo geliyey qoorta fiiri subxaan allah labadii gacmood iyo labadii lugood oo gadaal laga soo laabay iyo qoortii faaskii afkiisii duleelkii yaraabaa loogu xiray oo isku haya ilaahay wuxuu rabu sameeyaa dadkii o dhan way ooyeen